munaasabadan oo si heer sare ah loo soo agaasimay laguna qabtay hoteelka Landmark oo ku yaala magaalada Dubai ayaa waxa ka hadlay mulkiilaha iyo mas'uuliyiinta shirkadda Skyway Travel Tourism and Cargo iyagoo warbixin ka bixiyay shirkadda iyo adeegyada ay qabato. Shirkadda Skyway Travel Tourism waxay ka mid tahay Star Group oo wada garanaysan Star runtii waxyaabihii badnaa wadanka aan ka soo qabanay aad iyo aad bay u badnaayeen oo lama soo koobi karaayo waayo waxaan ahay shirkadii ugu horeysay ee diyaaradeed dhowr iyo 92 samaysantay dhulka Soomaalidu degto inta Soomaaliya oo dhan meel aan tegin ma leh hadaan noqdo yar ka soo qaado waxyaabihii ugu noogu aan isleeyahay runtii waxa ku mudan tihiin in la idinku tixgeliyo waxa ka mid ahaa in aan ahayn diyaaradii ugu horeysay ee fadhiisata meesha la yiraahdo Baydhaba oo kana soo qaada xoolo nool in aan ahayn diyaaradii ugu horeysay xoolo nool wadanka ka soo qaada in aan ahayn diyaaradii ugu horeysay ee lobster soo qaada dalkana madaar aan tegin iyo meel aan tegin ma jiro waxa ka mid ah waxyaabaha aan runtii aan muujisada anagu u eegayna in aan uga faa'iideyno ummadda in aan meelaan airport ahayn aan fadhiisan jirnay oo ka mid ahayd meesha la yiraahdo xiis iyo mayl oo banaan ahayd oo ka mid ahayd bandiiradley ka mid ahayd cadaado ay ka mid ahayd cisley anaga furay airportkeeda marka shirkadaasi markii diyaaraduhu soo bateen dadka baahidii ay dhamaatay diyaaradahan soo way imika way ku haboon tahay inay sii wada karaan shirkadaha kale Soomaaliyeed ee jira anagu waxaanu garanay inaanu uga baxno oo aanu ku hadhno kaliya travel iyo tourism iyo cargo khadamaadka kale dadka loo qabanayo Skyway waxay soo bandhigtay ummadda Soomaaliyeed adeegyo kala duwan oo aan ay sameeyeen taraafijinsiyada ka jira dalkan waxa ka mid ah adeegyada ay sameeyay waxa ka mid ah tigidhada oo internationalka ah oo ay jirto internationalka ama ha mid localka tigidhadaas waxa laga jari karaa qofka asagoo jooga dalka iyo asagoo jooga dalka dibadiisa intaba uu qofku u sameey kariyaa inuu xafiiska yimaado yiraahdo tigidhkaas ayaa u baahan ay ku xiran tahay uma baahna qofku inuu joogo dalka ama uu dibadda joogo waxaan kale service u sameeynay inaan u sameeyno basas dad ka soo qaado ajmaan ama shaariqa ama fujeera qof meel soo joogo dabeedna keen laakiin dadkaas wadada kaliya ee jartay tikidhada Skyway dhinaca kale waxa iyaguna tahniyad iyo talaba u soo jeediyay shirkadda qaar ka mid ah ganacsadayaasha sida aadka ah looga yaqaano bulshada Soomaalida ee ku nool wadankan Istaga Imaaraadka Carabta waxaan shirkadda kula talinayaa anigu kullayba khaasatan xafiiska ay Nasir Square ka furayso inay ka dhigto mid ummadaha kalena u adeega Skyway aniga waxaan idin sheegay horta marketingka shirkadaha jira Soomaaliya ku ugu fiican way run ahaantii hadii aan aniguna wax yar ku darsado Skyway macmiil baan in badan u ahaa waxaan qirayaa inuu yahay meesha ugu tigidhada jaban meesha service-ka degdega ah cargo-geeda oo aan marnaba ka lumayn wadanka meeshaad ka doontan toos lagu geynayo inkastoo magaalada Dubai iyo guud ahaanba wadanka Istaga Imaaraadka Carabta ay ku yaalaan ganacsiyo badan oo ay Soomaalidu leedahay ayaan hore loo qaban kulan noocan oo kala hadaba shirkadda Skyway Travel and Tourism ayaa iyagu markii ugu horeysay fuliyeen ay kulankan qabtaan ay ku soo bandhigayeen adeega ay u qabtaan bulshada Soomaaliyeed ee caalamka ku nool عبد الحافظ عول إسماعيل هون كيبل تي في دبي.